Djibouti waa dal yar oo Soomaaliyeed oo ka mid ah kuwa ugu yar qaaradda Afrika. Miisaankeeda istiraatiijiyadeed waa mid ka culus marka loo eego baaxadda dalka. Shaki la'aan waa mid ka mid ah wadamada ugu saameynta badan caalamka marka ay timaado xiisadaha juqraafi siyaasadeed ee dunida. Dalkan yar ee dhaca geeska Afrika waxa uu hooy u yahay ciidamo tobaneeyo gaadhaya oo ka mid ah xoogweynta dunida. U fiirsa khariidadan caasimadda Djibouti iyo nawaaxigeeda. Waxaa halkan ku yaala saldhigga ciidamada Mareykanka oo la yiraahdo Camp Lemonnier. Waxa dhagax tuur u jira fariisimaha Faransiiska iyo Talyaaniga. Washington waxa ay sanad kasta Djibouti siisaa $360 milyan oo ay ku karaysato saldhigga ay ka degan tahay dalkaasi. Faransiiska oo caalamka ay ugu yaalaan fariisimooyin tiro badan, waxa saldhiggiisa ugu weyn uu door biday in uu ku yeesho dalka Djibouti. Kana waa dalka Japan oo Djibouti ku leh saldhigga qura ee caalamka oo dhan uu ku leeyahay. Waxa dhinaca ku haya Jarmalka iyo Isbaanishka. Dhinaca kalena waxa ka muuqda Shiinaha oo isagu sanad walba Djibouti siiya $20 milyan oo kira ahaan uga bixiya saldhiggiisa iyo maalgashiyo tiro badan. Sanadii 2021, Djibouti waxay u ogolaatay Sacuudi Arabiya in ciidamadeedu ay saldhigtaan goob aan ka fogeyn saldhigga uu Mareykanku dalkaasi ku leeyahay. Sanado badan Hindiya iyo Ruushku waxay quudareynayaan in xarumo militari laga siiyo dalka Djibouti. Su'aasha ugu badan ee la isweydiin karo waa sababta uu dalkan baaxaddiisu yar tahay u martigeliyay dhammaanba quwadaha caalamka ee istiidooyinka badan ee ay dhex yaalaan. Warbixintan ayaan ku lafaguri doonaa. Magacaygu waa Nimcaan Cismaan, halkanna waa Fagaare Media. Tan ugu horeysa waa barta ay Djibouti ku taalla juqraafi ahaan. Waxay dhacdaa cidhifka marinbiyoodka Bab el-Mandeb, kaasi oo ku qasban yahay markab kasta oo raba in uu maro kanaalka Suez una gudbaya badda Mediterranean-ka si ugu dambeynta ugu xidhmo dekedaha qaaradda Yurub. Bab el-Mandeb waa goob ay ka gudbaan 12% wax ka badan saliidda caalamka sanad walba. Sanadkii 2022 waxaa la soo wariyay in 24 ka mid ah saliidda u socotay qaaradda Yurub ee ka timid gacanka Bershiya ay martay marinbiyoodka Bab el-Mandeb. Tusaale waxa kuugu filan sanadkii kaasi ka horeeyay ee 2021 markii uu xidhmay kanaalka Suez muddo 6 maalmood ah oo uu markab isku gudbay. Waxa ay dhalisay in boqolaal maraakiib ah ay caqabad xoogan wajahaan, isla markaana uu khalkhal galo isku socodka maraakiibta shixnadaha sida ee caalamka. Dhacdo kale oo macno weyn u sameynaysa marinka ay Djibouti ku taalo waa dalka hodanka ku ah saliidda ee Sacuudi Arabiya, kaasi oo maamula 15% kaydka saliidda adduunyada. Riyadh waa dalka ugu weyn ee soo saara saliidda caalamka. Dhaqaale ahaanna dalkaasi waxa uu ku tiirsan yahay 40% wax soo saarkiisa. Inkasta oo ceelasha saliidda ee Sacuudigu ay ku yaalaan bariga wadankaasi, haddana waxa adag in laga safriyo marinbiyoodka Hormuz maadaama isku halaynta Iran oo marinkan u jirta 38 kilomitir oo kaliya ay aad u hooseyso. Taasi beddelkeedana Sacuudigu waxa uu dhisay tuumbooyin shidaal oo bari iyo galbeed wadankaasi isku xidha, isagoo oo door bidaya in saliiddiisa uu ka dhoofiyo badda cas iyo marinbiyoodka Bab el-Mandeb si uu u gaadho suuqyada caalamka. Halkanse waxaa ka jirta halis xoogan oo aan indhaha laga qarsan karin, waana Xuutiyiinta dalka Yemen oo indhawaale cabsida laga qabo ay aad u sarreyso. Khatarta ugu badan ee aaggan ka jirta oo halis ku ah maraakiibta waa kooxdan ay Iran taageerto ee Xuutiyiinta. Waxaaba dhici karta in Sacuudiga ay ka xidhmaan labada marin ee uu isticmaalo ee gacanka Bershiya iyo badda cas, kuwaasi oo la'aantooda aanu heli karin beddel kale oo maraakiibtiisa saliidda sida ay isticmaalaan. Taasi waxa ay keenaysaa in maraakiibta saliidda u wada suuqyada dunidu ay maraan kanaalka Suez, kadibna badda Mediterranean-ka, markaasi kadibna ay u gudbaan gacanka Gibraltar iyaga oo ku soo wareegaya qaaradda Afrika oo dhan. Si aan taasi u dhicin, waa sababta ay Riyadh saldhig ciidan uga raadisay dalka Djibouti oo ku yaala afaafka Bab el-Mandeb. Qodob labaad oo ka muhiimsan midka Sacuudi Arabiya oo ahmiyad weyn u yeelay goobta ay Djibouti ku taalo waa midowga Yurub. Tan iyo duulaankii dalka Ruushka ee Ukraine, wadamada qaaradda Yurub waxa ay hoos u dhigeen gaaskii ay ka iibsan jireen dalka Ruushka, iyagoo u janjeersaday dhinaca dalka Qatar, wadanka labaad ee haysta kaydka gaaska ugu badan caalamka. Xiriirka gaaska ee Qatar iyo qaaradda Yurub waxa qasab ku ah in mar walba uu adeegsado marinbiyoodkan muhiimka ah. Qodob kale oo aan laga tagi karin oo Djibouti ka dhigay meel ay ku kala wareegaan badeecadaha dunidu waa dalka Shiinaha. Shiinuhu waxa uu si weyn ugu tiirsan yahay tamarta ka timaada gacanka iyo dhoofinta badeecadihiisa ku wajahan qaaradda Yurub. Arrinta xiisaha u yeelaysa marinbiyoodka Bab el-Mandeb waa in uu ku yaalo gobol juqraafi ahaan aan xasiloonayn. Waxa uu dhinaca ku hayaa Yemanta oo ku jirta dagaal sokeeye oo aan la aqoon goorta uu dhammaanayo. Koonfurta waxaa kaga naban Eritrea oo nin kaliya uu maamulo tan iyo sidii ay gobonimada uga qaadatay Ethiopia. Dagaalada ka socda Ethiopia oo ah dalka gobolkan ugu weyn iyo colaadda 30 jirka ka weyn ee Soomaaliya
waa walaac intiisa leeg oo xoogweynta caalamka ku qasbaya in ay helaan goob kale oo ay ka ilaashadaan maraakiibtooda biyahan adeegsanaya. ugu dambeyntiina arrimahaasi oo isbiirsaday waa midda keentay in dal wal oo caalamka ku yaala uu hungureeyo in saldhig uu ku yeesho dalkan Soomaaliyeed ee muhiimka ah. maanta waxaa degan Mareykanka, Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka, Isbaanishka, Jabaan, Sacuudi Carabiya iyo Shiinaha. waxaana la sugayaa Ruushka iyo Hindiya oo marar hore soo bandhigay xiisaha ay u qabaan saldhig ay ku yeeshaan dalka Djibouti oo danahooda ay ka ilaashadaan. arrin kalena waa sida ay u kala badbaadi karaan dalalkan aan wanaagga badan ka dhaxaynin iyo saameynta ka dhalan karta khilaaf soo kala dhex gala wadamada saldhigga ku leh wadankan, taasi oo u baahan in goonideeda loo taxliiliyo.